xarunta daraasaadka siyaasadda ee CBA ayaa waxa ay maanta magaalada Hargeysa ay ku qabatay kulan ballaaran oo ay ku soo bandhigaysay warbixinta daraasada ay ka sameysay lacagtii ay kharash gareeyeen xisbiyada Somaliland waqtiga ay ku jireen ololaha doorashada madaxtinimada Somaliland. kulankani lagu soo bandhigayay daraasada ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay saddexda xisbi ururada maxalliga iyo waliba mas'uuliyiin kale. ugu horeyna waxa halkaasi hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiinta ka socotay saddexda xisbi ee Somaliland iyo waliba agaasimaha adalada ay ku midoobay ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf. in fact si loo xakameeyaa lacagta in soo gelisa si loo xakameeyo waa adag tahay la sharciga article-ka 23 si loo excuse gareynaya wuxuu baahan yahay in aad loo sameeyo laakiin waxay ku xidhan tahay dadka la wacyi geliyo markay taxpayers money ka imanayso institution kan in loo arkaarto institution qaran oo ummaddu ay leedahay dabadeetana kobcinta institution kan la kobcinaya ay qayb ka noqoto maxaan ku dhahdaa koriinka guud ee maxaan ku dhahdaa institutionska uu qaranku leeyahay ololaha toddobada cisho ololaha oo kaliya yoonkii waxa baxay 1 point xisbiyadu ku kala duwan duruufahooda aanay ku kala xidhantay iyo waayaa ku gadaamay haluu qiimeeyay anu average intaan sheegi karo 1.6 ilaa 1.5 milyan toddobada cisho maalin walba laakiin waxay muuqanaysaa in xisbiyadu inayna public accountability ayna ogolayn inay sheegaan xaqay ka keeneen lacagahan waxayna noqonaysaa dariiqa hadhow corruption ka bilaabmo oo marka aad dawladii xisbigaas uu noqdo ama xisbigaas uu noqdo xisbi xaakinkii mar hadduu marka hore transparent ahayn lacagtan halkay ka keeneen ay $20 milyan ama $10 milyan doorashada ku galeen runtii waa dariiq aan sax ahayn. gabagabada gudoomiyaha xarunta daraasaadka siyaasadda ee CBA Maxamed Rambo ayaa waxa uu u waramay TV-ga Universal waxaanu ka warbixiyay ujeedada ay daarneyd daraasaadkan ay maanta soo bandhigeen. saaka xarunta CBA ee daraasaadka arrimaha siyaasadda dhaqaalaha xuquuqul insaanka dimuqraadiyadda waxay halkan ku soo bandhigtay research ay waday 4 bilood ee u dambeeyay taasoo ay ku baadhisay lacagta ku baxday guud ahaan doorashooyinkii Somaliland gaar ahaan ololihii ee saddexda xisbi qaran ee kulmiye wadani iyo uxud isticmaaleen. daraasadan waxay tii u horeysay ee Somaliland gudaheeda lagu soo bandhigo ee laga wareystay xisbiyada lacagta ku baxday waa intay ahayd halkay ka keenteen sida u isticmaasheen nidaam xisaabeed oo cad ma lahaydeen marka daraasadaas aan soo bandhignay wadarka soo dhamaan xisbiyaduna way ka soo qayb galeen. ololihii u dambeeyay intii ololaha kaliya waxa la qiyaasay inay lacag 20 milyan in ka badan oo dollar ay xisbiyada bixiyeen laakiin waxa noo soo baxday lacagtu inay inta ka badan tahay oo xisbiyadu wali xaqaayiqa sheegin lacagtu inta ka badneed baa yana noo soo baxday. daraasada ay soo bandhigtay xarunta daraasaadka siyaasadda ee CBA ayay ku sheegeen in xisbiyada siyaasadda iyo waliba hay'adaha kale ee ka shaqeeya doorashadu inay ku guuldareysteen inay dhaqan galiyaan qodobka 23 xeerka number 14 ee xeerka ururada iyo waliba xisbiyada kaasi oo dhigaya in xisbiyadu ay sanad walba bisha Maarch 31keeda u gudbiyaan guddiga doorashooyinka xisaab xidhkooda. daraasada ayaa lagu ogaaday inaanay weligeedba dhicin in xisbiyadu ay u gudbiyeen xisaab xidhkooda guddiga doorashada madaxtinimada Somaliland halka ay xisbiyaduna ku doodeen inaanay haba yaraatee commissionku weydiinin xisaab xidhkooda. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.